anu al-shabaab waa galay raganimo waxaan ku galay raganimadayda waxaana uga baxay raganimadayda runba fiican waxaan ku diiday raganimadayda ma garatay laakiin si bal hadda xafiiska xeer ilaaliyuhu waxa uu igu soo iideeyay anigu soo dhiiba ah waxa uu igu soo iideeyay ha ii qodobeeyo Saciid Cabdullaahi Dani baa wada maray adna waad martay dawladdu leeyay ma aha dadweynaha oo dhan baa mara shabaab waan ku biiray 2019 rag damac baa qaaday waxaana ka qaatay anigu soo dooray waxa kama qaadan lacag 5,000 ah ka bacdi waxaan tagay meesha jilib la yiraahdo jilib markii la geeyay aslan boorta hataan ku noqon nin waxaan hayay waqooyiga buu hoole deegaan ahaan waan ka soo jeedaa laakiin waxaan ku dhashay xagga ka bacdi systemkii waxa weeyaan la ii qaaday markii la ii sheegay waxaan ku baxsaday raganimadayda iyo kartidayda dib waxa aan ula midoobay reerihii aan ka soo jeeday iyo buu hoole muddo waxa weeyaan 2 sano adigu iska kaamil ah kadib ayaa waxa weeyaan ay haddana waxa weeyaan ay mar labaad ay soo raadiyeen waxay ii bandhigeen in waxa weeyaan lacag badan aan qaato qorshihii la ii tababarayna in ka soo tababarku uu qabyo ahaa oo aan soo dhameystiranin in waxa weeyaan mar labaad heshiis cusub in aan saxeexano aan kala saxeexano waan diiday markii aan diiday qaraar waxay soo saareen in waxa weeyaan la dilayo ay dil tahay waxaan wargeliyay laamaha waxa weeyaan amniga ee New Police hawshaas jirtaan ay waana joogan aragayga oo dhan baan uga dhacay wardigaankeenina waxa laga damcasay baan idinkii tale idin jirtaa xog far badan baan siiyay waxay ii sheegeen inaan Puntland aado ayagu in aysan wax magangeliya aysan isiin kareenin waxay joogan jilib waa amirkii waxa weeyaan waana maktabka waqooyiga haysta Mr. Caynaasha ninka la yiraahdo waa ciidagala weeyaan qolada aniga buu Hargeysa iga tashkiilisay ragii waxa weeyaan soo diray weeyaan aan ku dhameystiro siro kooban ka bacdi markii New Police aan la kulmay waxay ii sheegeen markii wixii xoga ay igala hareen saraakiishu way joogan lambaroodii waan hayaa rag aan la kulmay in aysan iyagu aysan qaadi kareenin oo New Police ku hadeerto sidii hore uusan ahayn soolnay in aan degi karin waxay ay igula taliyeen inaan Puntland aado nasiib wanaag waxay siiyeen lambar wuxuu igu jiray taleefankayga halka markii shaqadeedu ay marayso waxaan kula wargeliyay sarkaal waxa weeyaan adigu booliska ah hadeerto lambarkiisa ma xasuusto magaciisa ma baqayay baan ahaa ma garatay waayo anigu waxaan aqaan ragaan macnaha aan la tacaamulay waxa weeyaan waxaan la tacaamulay reerkayga ogeysiis baan iyaan bixiyay hawshaas jirtay waxay yiraahdeen wax garaba oo aad naga helaysaa ma jirto totally ba garowan imid nasiib wanaag teleefankaygii waxa ilaahay iga sareeyaa waxa la iga qaaday tuuga garoowe oo lacag waxa lacag qarasha man haysan oday baan shaxaaday waxaan waayahay sax waxaan imid marka inta ugu muhiimsan waa inta ugu muhiimsan mudane gudoomiye 1 minute waxa aan ku eedeysanahay waa in macnaha waxa weeyaan aan madaxweynaha soo raacay أنا وحنا هالشخصي لامه سردونك Puntland raadinaya waa koow wada uu Siciidane gaar oo aan maan soo marin gurigiisana ma tagin 19kii waqalad baa ku jira in min ilaa iyo dangoroyo ilaa iyo waaciye waxaan ka wada carmo aanu istaba soconay 19kii waxa weeyaan November ayuu madaxweynuhu wuxuu maray waaciye أنا 20 baan imid shakhsi waxaan ka helay SEC waxa weeyaan amniyaadkeeda kamid ah oo reebuhooda arintii baan yaan u sheegay waxaan isaasa jirtan iyo waa lagu daba jiraa deedna wuxuu igu yiri waa si wacan maxaa doonaysaa waxaan u baahanahay baan ku anigu Puntland ma kala aqaan systemkeeda waxa weeye iyo securitykeeda waxaan u baahanahay
in aad xiriir iga siiso BMBF nin ka mid oo dhulbahanta ah oo garaad la yiraahdo ayuu lambarkayga siiyey ninkaas soo wacay wuxuu soo diray qarashkaygii aan ku imid iyadoo la wado waxa la ii keenay sarkaal yaani waxa weeyaan waxaan imid xafiiska waxa weeyaan yaani waxa weeyaan xafiisyada laamaha amniga xafiis ka mid ah baa la keenay saasa la igu soo dhiibay saasaan macna waxaan ku xirnay saas laba kelmood hal la siiyo horta xafiiska xeer ilaaliyaha aan saxo anigu horta dadka in fikirka al-shabaab iyo dacwadeeda aan ku qanciyo leeyma tababarin ninku qofku wuxuu soo maro inuu sheegaa wanaagsan yaani aniga waxa la ii tababaray bay'ada buuhoodla ku nool kathiira min in fara badan baa shabaaba haddaba xubno ka yimid oo tababar Sacuudi baa la qabtay now waayahay in ragaas waxa weeyaan meeshaas mucaskaraad aan ka sameeyay waa deegaanka cayn oo dhan buuhoodla maaha iyo nawaaxigeeda tuulinka degan yihiin buuhoodla degan yihiin laakiin waa ashkhaas waxa weeyaan daaha gadaashiisa waxa weey ku jirta 3 4 5 6 in aan u tababaro waxyaabo ay u kalifiinaan diido taasa kowka inaan dadkayga aanan waxa weeyaan aanan horseed aan u noqonin dib aan u soo jiido qodob anu al-shabaab waa galay raganimo waxaan ku galay raganimadayda waxaana uga baxay raganimadayda runba fiican waxaan ku diiday raganimadayda ma garatay laakiin si bal hadda xafiiska xeer ilaaliyuhu waxa uu igu soo iidiyay anigu soo dhiiba ah waxa uu igu soo iidiyay ha ii qodobeeyo Saciid Cabdullaahi Deni baa wada maray adna waad martay dawladdu leeyay ma aha dadweynuhu dhan baa mara madaxweynuhu waa mahadsan yahay 19kii buu maray anna 20kii baan maray saacadu saa u dhaafay waxa laga yaabaa in boqolaal gaari mareen rakaab baan ahaa marxaati waxaan haystaa new police in aan la kulmay anoo Puntland ba soo galin marxaati kale waxaan haystaa in xataa ay Soomaaliland ii yeereen waxaan hadda nimankaana wax naga dhaxeeyo wad ogtiin sheergiso dhan anaga kugu baahanay imow ma garateen يعني waxa weeyaan anoo wax badan qiimeynaya oo hadda halkan aanan ka sheegaynin anoo qiimeynaya yaa waxaan doortay in waxa weeyaan inaan dawladeeda waxa weey Puntland aan u imaado dhaxana war magaaladii iyo deegaankii waxaasa ka jira anigana waxaasa la igu tala galay waana ka baxay qof baanan dilin qarx la igu soo qaban qori la igu soo qaban ana iskeenay muddo gudoomiye Soomaal fahmin marka de waxa yaani inaan bulshadeeda aan miya cusga raacaya mise waxaan dhiibaa nin xogaa dal badan dareemayaan haynaan bulshadeedii aan dib ula midoobo reerahayaga qaar baa Masar degan hadii waxa weeyaan ay arkaan wax ii ballan qaadayaan in wadanka bal laga saaro yaani in bulshadeedii dadkii caruurahayga aan soo urursado oo dadkayga aan ka mid noqdo nimankaana waxa weeyaan san ka yeeliya ana aqaana ama dalka aan uga baxo ama waxa weeyaan shakhsi ahaanteeda anigu aan isku difaaco laakiin waxaan codsanayaa inta in la sii daayo